السلام عليكم وانا افتح ابراهيم waxaan eegi doonaa VS Code-ka qaabkan ku shuban doonaa okay so markaas yani su'aalo ugu iman ama qofku oo oran sideeban u shaqeeyo kale so marka video-ga hore waa qaabkan u soo dhawngareynay video-ga hore soo daawatay qaabkan waxaan eegi doonaa qaabka aynu ugu shubayno VS Code-keena okay so marka soo dhawngareysta ama folder-ka ku furi doontaa ama wad ran gareyn doontaa okay so marka imika waan ran gareynayaa kadib wuxuu oranayaa dooro kadib waxaad oranaysaa accept waan aqbalay agreement-ka kadib waxaad oranaysaa next-ga ku dhufanaysaa xagga aad dhiganaysid ayaad dooranaysaa okay kadib waxaad oranaysaa next kadibna VS Code ayaa macnaha uu ku noqonaya halka sii dhiganaysid ama menu folder-ka okay kadib waxaad oranaysaa next oo oranaysaa kadib waxaa shortcut menu ku sameeyaa icon haddii doonayso ku sameysan karaysaa haddii kale maxaa heedo ma sameysanayso okay let's say waxaan continue kadibna install baan qornaya very simple okay markuu inoo ugu shumo waxaan eegi doonaa qaabka ay u soo kacsanayno so marka waxaan eegi doonaa extensions ugu muhiimsan aynu ku shuban doono okay kadib qoraya ma launch baan sameeyaa haddaan taas tigta ku saarnay ma ku soo kacayo haddaad tigta saartana wuu ku soo kacayo okay so okay markaad ku shubto installation-ka dhamaystirto waxa ku soo baxaya uu soo kacaya marka waxaad doonaysaa tusaale kale qayb sideebaad marka ugu ran gareyn karaysaa file ku shaqeynaya HTML okay sida idinka arkaysid iminka folder baan soo import gareeyay haddaad doonaysid file inaad soo import gareyso waad taabanaysaa open folder ama control O waad taabanaysaa kadibna wuu soo furay xagga uu yaalaad kusoo furaysaa okay marka imika folder marba xaggani yaala waxaan sameynayaa hal file si aynu aragno waxyaabaha qaar ba u baahan inaan tuso so marka extension-ka waxaad ka dhigaysaa index.html mostly inta ugu badan index-ka lagu qoray laakiin waxa allaali waxa doontaad ka samaynaysaa okay marka waxaad soo noqon kara html baa imika extension u ah oo macnaha uu kuu sheegaya filekan waxa uu yahay kadib hit markaan siiyo click siiyo waxay soo baxaya meesha maran okay markaan code-iska qori doonaa ayaan arki doonaa qaabka loo isticmaalayo laakiin marka imika aan soo furo waxaan taabanayaa shift iyo 1 exclamation-ka kadibna ku dhufanaya okay marka imika kale wuxuu ku sheegay waa HTML5-kii waxyaabahan waan sharaxi doonaa waxay sheegayaan iyo waxyaabaha kale yihiin body-ga header-ka iyo waxyaabahaas oo dhan okay waxaan sameynaynaa extension-ka ugu horreyn ku shubayna waxaa loo yaqaanaa live server baa loo yaqaana okay so live server marka waxaad hubinaysaa internetku inuu kugu xiran yahay haddii kale waxyaabahan kuma shaqeynayaan okay sida arkaysa horaan ugu shubtay marka soo furta adigu marka ugu horeysa halkan waxay kuu noqonaysaa install kadibna waad ku dhufanaysaa kadibna waxaad siinaysaa inaad tiraaho enable imika uu enable garaysan yahay laakiin hadda imika aan doonayna disable baan siinaya okay marka sidee buu shaqeynaya haddii intagna failkeena oo let's say imika halkan aan idhaaho h1 waxyaabaha mayno arag waxay kala yihiin iyo waxay u shaqeynayaan laakiin waxaan ku tusayaa just example baan dhigaya okay marka imika doonaya tusaale ahaan oo kale shaygan inaan shaqeeyo ama live serverku qaabku u shaqeynaya doonaya eegno waxaan siinaa right click baan siinaynaa kadib waxaan odhanaynaa open live server okay live server ayuu iigu furaya so marka imika tusaale ahaan kale haddii doonaysa si aad u aragto aan yareeyo oo xaggan aan dhigo in aan yareeyo let's say live serverku waxa iyagan kuu sheegayaa in aan saa idhaaho imika haddii aynu samayno waxa loo yaqaana inner HTML let's say aan style idhaaho marka waxaan ku tusayaa qaabka uu shaqeeyo waxa loo yaqaano live serverku markaan save gareeyo dhammaan waxayga ayuu ii shaqeynaya okay so imika haddaan idhaa h1 oo xaggan aan furo let's say colorka haddaan doonaya inaan bedelo waxa uu leeyahay h1-keenu ama header 1-keenu let's say waxaan idhi purple baan idhi say purple okay purple markaan idhaaho haddaan imika save idhaaho wuxuu isku bedelayaa shaygii purple buu isku bedelaya okay so markaan live server waxa weeye adiga oo aan
browserkii tegin oo aan taaban maxay hayday refresh ayuu automatically markaa save tiraho ugu sameynaya okay so markaa imika tusaale ahaan kale waxyaabahan maynu arag laakiin waan ku tusayay si aad u sii fahanto haddaan imika raacdo tusaale ahaan center aan idhaaho oo kadibna aan save idhaaho waxaad arkaysaa inuu isbedelay macnaha centerkii ayuu tegaya okay so markaa wuxuu kuu sheegayaa in aan isticmaalo live server marka waa easy markaa doonaysa inaad aanad marba browserkii marna furin marna aanad ku noqon editorkaagii ayaad isticmaalaysaa okay waxa ku xiga shayga loo yaqaano haddaan imika kan iska soo cancel garayno aynu u gudubnay extension kan inoogu xigay wuxuu inoo noqonaya waxa loo yaqaano bracketka let's say bracket baan samaynayaa okay bracketkaas wuxuu inoo sheegayaa wixii islahaba inuu isu kan sameeyo okay so marka imika haddaan doonaya inaan ku show si leeg waxaan ku samaynayaa soo furayaa install baan ku siinayaa okay so marka imika salaantan taga index.html ka aan tago imika wuxuu ii sheegayaa bracketkan kuu sheegaya waa kan css-ka markaan joogo mostly sidan looma isticmaalo oo file gaara loo fura css-ka markaynu ka hadlaynaan arki doonaa qaabka loogu xidhayo waxyaabahaas marka wuxuu kuu sheegayaa in uu iminka kani kan ku xidhan yahay okay imika haddaan kan ka baxo halkan oo aan mid kala furo let's say haddana h1 idhaaho wuxuu ii sheegaya kana inuu kan ku xidhan yahay okay so markaa bracketkuna qaabkaas uu shaqeynayaa ama maxay yahay isagana qaabkaas ayaa loo isticmaalaya marka wuxuu kuu sheegayaa koodkaas inta ka dhaxaysa iyo bracketku ku xidhan yahay okay okay inta markaan kaga gudubno live serverka iyo bracketka waxa inoogu xiga waxa loo yaqaano themeka inoogu xiga ama themeska kala duwan so marka waxaa jira tiimam kala duwan baa jira ama themes kala duwan waxaynu eegi doonaa kaynu isticmaalayno oo loo yaqaano maxaa yahay material ayaa loo yaqaanaa teamkan isticmaalayno kuwo fara badan baa jira waxaa ka mid ah aram team dhammaan waxyaabaha teamiska oo dhan xaggan aad ka helaysaa hadaad team keliya aad ku qortid okay marka kan ayaan soo qabanaynaa material icon theme baa ku qoran marka hore intaynan u gadagelin qaabka aad ugu shubay u isticmaalaysa teamka kala duwan waxaan eegaynaa sidaad iconkan u samaynayso so marka iminkaan waxaa idhi set file icon themeka ayaan doortay haddii aan idhaha tusaale ahaan iminka aan disable siiyo kadibna aan dib u reload gareeyo waxaad arkaysaa in maxay ahayde htmlka calaamadii igu horreysay ama iconkii uuna ii sheegaynin markaas aan ugu soo celiyo waxaan samaynayaa waan ku noqonayaa material teamkaygii kadibna waxaan tegayaa kadibna waxaan odhan enableka ayuuman ka dhigayaa workspaceka kadib saad arkaysid wuu ii soo noqonaya okay haddaba si aynu ugu shubno ama teamka nooca uu yahay anigu aan ku shubtay iyo nooca lagu shubay waxaad tegi doontaa file baad tegi doontaa kadibna waxaad tegi doontaa preferenceska kadibna waxaad tegi doontaa halka ku qorantay color themeka ama waxaad ku dhufan doontaa control-k iyo control t okay intaa markaad tagto xaggan waxaad ka baadhaysaa materialka okay saad arkaysid material themekii buu ii soo saaray durtooba wuu isbedelay material themekii okay aad doonaysid marba si aad doonaysid markaa kan ma isticmaali karana uu fool xunye marka uu yahay waxa loo yaqaano caddaanka kan hadda uu isticmaalayo waxa weeye balnetkaas la dhahaa isagoo high contrast aan isticmaalaya okay so marka kaa doonaysid agaas ka dooranaysaa kii aad jeceshay ayaad ka dhiganaysaa okay okay marka qaabkaasaad ugu shubanaysaa teamka iyo shaygaa doonaysid okay so markaa iminka haddaan uu ka noqdo inahaas ayaanu isagana kaga gudbaynaa okay ka kale aan ku tusaya waxa weeye waxa loo yaqaano colorka okay so markaa iminka tusaaladan halkan ku qoro color waxa jira colorka inuu ii soo saaray waxa uu yahay ama color highlight baa la dhahaa isagana si leeg waxaad dooranaysaa install baad ku siinaysaa kadibna waad enable garaynaysaa okay so marka haddaan iminka halkan ku noqdo waxaad arkaysaa calaamadda halkan iigu qoran ee purple-ka ah inuu ii sheegayo colorkiisii oo coloriska waan arki doonaa markaynu u galno css-ka qaababka kala duwan ee coloriska loo qoro iminka kan oo kale haddaan halkan ku dhufto
waxaan awood u yeelanayaa aniga un koodhkii dib u qorin inaan bedeli karayo okay colorkaygi okay saas oo kale iminka waa RGB oo RGB baa la dhahaa oo waa red green blue waan arki doonaa markaynu colorska u gudagalno haddaan doonayna bedel xaggan aan ka bedelayaa waa hexa koodhkii inoo noqonaya okay marka waxaa jira isagana wuxuu kaa saacidayaa colorkaagii in aad samayn karayso ama colorka aad doonayso inuu kuu sheego colorkaas isticmaalaysa nooca uu yahay okay extensioniskana kuwaas ugu muhiimsan waxaa jira isaguna waxa loo yaqaano emetkaas wuxuu kuu sheegayaa marka imika tusaale ahaan kale halkan aan doonayo h1 kan aan doonayo tusaale ahaan kale aynu ka hadli doono wuxuu kuu saamaxayaa iminka inaan tusaale ahaan kale diif qoro inta diif aan doonaya aan maxaa qori karo tusaale ahaan 2 diif baan doonaya okay ama diifkii inaan qori karayo anigoo 2 jeer qorin okay iminka sadarkaysid maan qorin diifiskii maan qorin okay marka wuxuu macluumaad kuu sameynaya markaynu u guda galno si fiican u si fahanno HTML-ka CSS ka waxyaabahaas oo dhan ayuu macluumaad kuu sameynaya waxaan okay marka inahaas ayaynu ku soo koobinaa extensioniska uu yeelanayo waxa loo yaqaano extensions fara badan oo kala duwan baa jira okay intaana soo gabagabay waxaan eegi doonaa extension kale oo isaguna muhiim ah oo ah koodhkayga qaabka uu ii noqonayo okay tusaale kale waxa loo yaqaanaa prettier baa loo yaqaanaa marka prettier code formatter baa jira macnaha waxa weeye koodhkayga tusaale ahaan iminka halkan uu yaalla haddii iminka koodhka aan halkaa idhaaho koodhka haddaan iminka dib u saaro oo ilaa halkaan geeyo macnaha waxa weeye koodhkayga ma format garaysno si fiican uma samaysna okay laakiin markaan doonaya inaan formatting ku sameeyo qurux badan waxa aan sameynaya aan ku shubanayo waxa loo yaqaano prettier codeka okay so markaan save idhaaho wuxuu ii noqonayaa shay qurux badan oo si siman codekii ayuu ii tegayaa meel wada siman okay so markaa haddaad doonaysa qaabka u shaqaynaysa inaad tagto waxaad soo dooranaysaa control comma ama waxaad tegi doontaa settingska kadibna waxaad ku dhufanaysaa settings ama control comma ayaad ku dhufanaysaa so markaa iminka xaggan waxaan ka baarayaa formatter markaan xaggan ka baaro waxaad arkaysaa inuu ii dooran yahay waxa loo yaqaano prettier codeka kadib waxa aad tigta saaraysaa ugu muhiimsan waxa weeye markaan save idhaaho in uu automatically ii format gareeyo uu isku line gareeyo codekaygii okay sidoo kale waxaad tigta saaraysaa waxyaabahan oo kale laakiin ta ugu muhiimsan waxa weeye inaad markaad format aad save garayso inuu ku format gareeyo okay so markaa extensioniska ugu muhiimsan marka VS Code kan intaan isticmaalna hadda kuwaasaa ka mid okay markaynu u gudubno waxyaabaha kale wada eegidana extensioniska loo isticmaalayo okay laakiin imika shantan extension baa ugu muhiimsan kuwa kale waad baari kartaa oo wixii aad hadba u baahan tahay extensionkiisa waad ku shuban karaysaa okay marka inahaas bay ka eeganaysaa qaabkii loogu shubiyey iyo qaabkii aynu sameynay extensionka okay وما سنتين انتين كوكل مدونو 10 كان كو حيقا